munaasabadan oo ka dhacday hotelka Nuura International oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg ayaa lagu soo dhaweynayay siideyntii shirkadda Albarakaad oo muddo 10 sano u xayirneed golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaybteeda la dagaalanka argagixisada caalamiga ah kadib markii ay dusha kaga tuureen eedeymo ay shirkaddu iska fogeysay una aragtay inay ahayd mid siyaasadeed نبضون حاجة عبد ولي أو كميد قبن قابياشي مناسبة دني سو دوينتا فسحيد دلا فسحي شركة البركات أيات المامين وحلو فرحة أي تهي هنتي الصوماليات ولا فسحي حفلة قروح الضن يا كان كده علي يا أكو سو دوين من الشركة البركات الشركة دي هوس إيماني أنا بقى جالية صوماليات ساوث أفريقيا الشركة ولا فسحي سر رسمي يا حنبات اللوجة هذه قرار كسر بحي قرامد المدوبيت بدي la socoshada iyo arrimaha lagu eedeynayay markii hore waxay soo cadeeyeen shirkadaas inay nadiif ka tahay ha yeeshee waxaan kadib aragnay in la yiri wadaadku liiska ay ku sii jiray shakhsiyan waxaan u aragnay arrintaas qiyaas ahaan ilaahay baa og laakiin waxaan u arkay arrin siyaasad oo ka dambayso Sheekh Axmed Nuur sidiisaba qalad uu galay bataatanba ma jiro oo uu ka galay adduunyada iyo ummadda Soomaaliyeed walaal qalad iska daayay wax badan u fiday oo wax badan ummadda Soomaaliyeed meel ka soo joogta horta sideedaba qof shakhsi ah oo ganacsada ah ama shirkad Soomaaliyeed oo awood u leh inay bixiso 12 milyan oo dollar oo Axmed Nuur Cali Jimcaale ay jirto u malayn maayo Cabdiqafaar Yaasiin Miro oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin fasaxida la fasaxay shirkadda Albarakaad runtii waa wax lagu farxo Albarakaad shirkad weyn ayay ahayd oo Soomaaliyeed oo adeegyo badan dadka Soomaaliyeed ku haysta Professor Abdulqaadir Cigaal oo kamid ah aqoon-yahanadii ka hadlay munaasabadani ayaa sheegay xayiraadka qaadista shirkadda Barakaad inay tahay guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed horta marka horeysa waxaan rabaa inaan u hambaliyo dhammaan shirkadaha Soomaaliyeed ee xawaalada waayo shirkadushan waxay guul tahay dhammaantood shirkadda Albarakaad dadka waxay ku tiriyaan in loo xiray waxay dad kale ka dambeeyeen Soomaaliyeed laakiin arrintu waa ka weyn tahay waayo maanta waxaan ku jirnaa marxalad adag oo adduunka waxaa lagu tartamaa wax la yiraahdo market economy waxaa laga hormariyaa xaraf macaan oo la yiraahdo free market economy gudoomiyaha golaha fulinta jaaliyada Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika mudane Ismaaciil Cabdalla Soomane oo ka hadlay munaasabada soo dhaweynta xayiraadka qaadista shirkadda Albarakaad ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin hantida ummadda Soomaaliyeed ee la xayiray 10 sano ka hor in maanta la fasaxo runtii waxaan isleenahay in aan dareenkeena muujino ka Soomaalinimo inaga oo qurbaha ku nool mumtalakaadkeennii iyo hantidii Soomaaliyeed ee dhaawac la gaarsiiyey sanadaha badanna runtii arrintaas ay socotay inay hadda cadaato baraacadeeda iyo nadiifnimadeeda ama dadkii gacanta ku hayay ama hantida laftirkeeda inay wax weyn tahay ayaan u aragnay taas marka waxay kaliftay jaaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika oo kaashanaysa ganacsatada Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada iyo odayaasha Soomaaliyeed in dareenkeena anaga aan ku cabirno halkan aan la kala qayb qaadana ummadda Soomaaliyeed inteeda kale iyo gaar ahaan hantiilayaashii iyo shaqaalihii gudaheed ka shaqeynaya shirkadda Soomaaliyeed 17 bishii Febraayo ayay ahayd markii la fasaxay shirkadda Albarakaad iyo milkiilaheeda Axmed Nuur Jimcaale taasoo ay ummadda Soomaaliyeed aad ugu farxeen meel kasta ay joogaan ayaa haddana waxaa jiray warar been abuur ah oo laga shaaciyay qaar kamid ah shabakadaha internetka taasoo sheegaysay in xayiraad cusub lagu soo rogay milkiilaha shirkadda taasoo isaga qudhiisu uu ku sheegay been aan sal iyo raatoona lahayn oo aan la rumaysan karin si kastaba haatee jaaliyada ku nool dalkani Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg ayaa aad u soo dhaweysay xayiraadii laga qaaday shirkadda Albarakaad kadib markii ay xayiraad ku soo rogeen laanta la dagaalanka argagixisada ee dalka Mareykanka aad baan ugu faraxsanahay shirkadaas inay furanto soo noqoto waxaan qiyaasayaa sidii Cabdiqaadir uu sheegay dadka ugu horreysay gaar ahaan shirkadda ugu horreysay inay tahay oo ka furanto South Africa ama lacag ka dirsan jirnay anigoo ku hadlaya codka gabdhaha Soomaaliyeed ee qurba joogta Johannesburg aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horta in Albarakaad la soo dhaliyo intiina xafladda isugu timid iyo intii qaban qaadisayna aad baa u mahadsantihiin xafladan waxaan ugu magac daray xamdinaq sideeda xafladan xamdinaq baan ugu magac daray waxaanan ugu xamdinaqaynaa
xoolaha iyagii gaaladu ay waxna filisgarayso oo dhacday waxna ay shaqadii joojisay. xiritaanka shirkadda Albarakaad ayaa waxay ku soo beegmaysay xilli la qarxiyay labadii daarood ee mataanaha ah ee Twin Towers ee magaalada New York, taasoo ay dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay ay sheegeen inay shirkadda Albarakaad ay ka mid noqotay shirkadaha ay joojiyeen in ay adeegooda isticmaalaan. Cabdinaasir Soomane, telefishinka caalamiga ah Universal TV, Johannesburg.